gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ka hadlay dil maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Gumbur Libaax. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay inuu gacanta ku soo dhigay dilkaasi waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yiri ayba mahadle run ahaantii waxa ka dhacay magaalada tuulada Gumbur Libaax dil foolxun baa ka dhacay ilaahay marxuumka ku geeriyooday halka naxariistii jannaha siiyo samiriye iimaana haynaga wada siiyo gaar ahaan qoyskii ayaan ka tacsiyadeynayaa shalayto anagoo guddidii nabadgelyada iyo madax maayarka taliyaha qaybta waa wada tagnay hawshaas aanu uga qayb galnaa aaskii iyo si aanu nabadgelyadii u xidhno alxamdulilaahi rabbil caalamiin hawshaasi oo runtii culays weyn lahayd oo isla markiiba dad la afduubay ay jireen ilaahay uu nagu soo guuleeyey ilaa xad qadarka ilaahay baa ku shaqo leh wixii dhici doonaan uu kama warramayo aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqayaa intii nagala shaqaysay sidii loo soo qaban lahaa gacanku dhiiglaha iyo weli baadhista waa socotaa waa la soo qabtay gacan ku dhiigliya alxamdulilaahi rabbil caalamiin iyo cid kasta oo lug ku lahaydba baadhistii iyo hawshii ciidamada booliiska oo xil saaran wixii hawshaa lug ku yeeshana tallaabo adag baanu runtii ka qaadnay. geesta kale jilayaasha Sooraan Ismaaciil Sugule iyo Jawaan Ciise Axmed ayaa deeq xoola ah oo ay kaga qayb qaadanayaan ka soo kabashada abaaraha gudoonsiiyay gudoomiyaha gobolka Togdheer. halka kan maanta waxaan ku mareejinaynaa gudoomiyaha gobolka Togdheer 10kii neef ee aanu kaga ballan qaadnay qaaraar ururintii madaxtooyada lagu ururinayay oo aanu ku wareejinayno maanta annagu gudoomiyaha gobolka Togdheer qof waliba wixii uu ku ballan qaadayna in la helo waxay ahayd wax waajiba annagoo la taagan gudoomiyihii gobolka Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax waxaan leenahay gudoomiye naga gudoon annagu hawsheedii ka soo baxnay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa labadeena oday ee aynu jecelahay oo runtii aad iyo aad uga qayb qaata wacyigelin hadday tahay iyo hadday tahay waxtarba waa arkaysaan xoolo dhaqmaatina bay maanta keeneen 10 neef bay keeneen deehayntoodana waynu ka warhaynaa dee tijaartii iyo ganacsatadii ballan qaaday dhaqaalihii ay ballan qaadeen inay keeneen baanu iyagana inay keenaan baanu ka codsanaynaa xoolahana waxaan ku wareejin doonaa gudoomiye ku-xigeenka Yuusuf guddida taakulaynta iyo ka soo kabashadaba inooga mas'uula ayaan ku wareejin doonaa waa idinkala wareegnay waxaana leeyahay ku dayasho fiican baa u tihiin dalkiina iyo dadkiinaba. Axmed Kaafi Saleebaan Carab shabakada caalamiga ee Qulugu News magaalada Burco.